السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافيمات تاما يا لدين رجين أيام ميل كستو أدون كاد كجسو أنتهين ورالها شرفت بدن مقالك إن شاء الله وحين كسو قادنا هوينك إسعابوريا أفكا حدا أفكا أما مرها كحدان أما بركنها ساران أما قعنتooda ha saaraan xilliga gogosha la sameeyo dhibaatooyin caafimaad oo ka dhashay inuu tilmaami doona faa'iidada caafimaad ee haweeneydu inay hadasho ama in afkeedu uu furnaado ay u leedahayna waa tilmaami doona hadii Ilaahay ka dhigo dhakhaatiirta haweenka la taliya ee xaaladaha haweenkan counseling-ka ka bixiya iyo dhakhaatiirta kale ee iyaguna markaas xaaladaha qoyska iyo caafimaadkooda ka taliya ayaa recommendation-ka ay soo jeedinayaan iyadana aynu soo bandhigi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo marka koobaad si aynu iskula fahanno arrintan aynu ka hadlayno marka qofku suuliga uu galo ee suuliga aynu tagno ee xaajada suuliga aynu ku soo gudanayno ibn aadanka waxa ka yimaada saddex shay fuduwaad baa la yiraahdaa saddexda shay ee marka qofku suuliga uu tago ay inaga yimaado ama ibn aadanka ka yimaada laakiin dadkeenu waxay moodaan in suuliga laba shay oo qura aynu ku soo gudano yani hadii imika qofka ku tiraahdo suuliga marka aad gasho imika fuduwaaba ka yimaada wuxuu oranayaa laba shay oo baan suuliga u tagaa inaan ku soo gaajo iyo inaan ku soo saxaroodo laakiin waxa jirta arrin kale oo qofku markuu suuliga tago nafiskii qofku uu dareemayo ka qayb qaadata arrintaasi waxa weeyaan naqaska qofka ibn aadanka xagga dambe ka soo baxa sida ay u badan tahay qofku meesha uu iskaga sii daayo ee markuu suuliga taga ka timaada waa naqaska dambe ee ibn aadanka ka soo baxa marka saddex shay baa qofku suuliga uu ku soo nafisaa waa inuu kaadi ahaan ugu soo nafiso iyo inuu saxar ahaan ugu soo nafiso iyo inuu naqaska dambe ugu soo nafiso saddexduba waxay ka qayb qaataan in qofku uu nafis dareemo ama marxaladda leeyaha comfort inuu dareemo marka saddexda shay ay ka yimaadaan haddaba arrinta inta badan bulshadu ay ignore garayso ayaa example iyo tusaale loo soo qaatay halkan marka la joogo naqaska xagga dambe ka yimaada lamaanuhu marka ay gogosha sameynayaan haweenaydu inay hadasho oo ay codkeeda ay si wanaagsan ugu hadasho oo yacni stimulation-ka ay dareentay ama feeling-ka ay dareentay ama raaxaysiga iyo pleasure-ka marka ay dareemayso afkeedu uu furnaado oo dhawaaq iyo reen iyo hadal ay samayso waa nooc ay ku nafisayso oo markaas ay kaga helayso in gariirkii gogosha iyo galmada si fiican ay uga bogato waa nooc marka haweenaydii ay marka xaaladan ay ku jirtay hadasho ay si fiican ugu raaxaysanayso hawshii ka socotay meesha gogoshii la sameynayay waxa kale oo jira haweenaydu markay hadashay hadalka ay samaysay aan is caburin waxa yimaada in marka hormoonada farxadda ka qayb qaata si wanaagsan jirka ay ula falgalaan oo la soo daayo laakiin hadii haweeneyda ay iscaburiso oo hadalkaas ay isku xidho oo aanay hadlin maxaa dhalan kara ama dhibaatada iman karta maxay tahay dhakhaatiirtu saddex shay bay soo qaataan marka koowaad haweeneydu madax xanuun bay dareentaa oo headache bay isku aragtaa waa marka labaad ee waxa luma macaansigii ay macaansanaysay gogosha ama galmada ayaa meesha ka baxda markasta oo caburkaasi haweeneydu ay iscaburiso waxay weydaa raaxo fara badan oo markaa ay ku raaxaysan lahayd gogoshiina way weydaa waxa kale oo ku yimaada in haweeneyda dareenjabkeedu uu dib u dhaco dareenjabka haweeneyda inuu dib u dhaco saddexdaas yacni in haweeneyda shahwadeed iyo dareenkeedii jabi lahaa inuu dib u dhaco oo waqti uu qaato oo la doono hawsha in waqti dheer la sii wado sidoo kale waxa jirta ninka marka la eegayana ninka waxay soo dadajisaa in marka ninka qudhiisu aanu si fiican
ugu raaxaysan gogosha oo daraasad caafimaad oo la sameeyay waxay muujinaysaa codka haweeneyda ka soo baxaya xilliga gogosha la joogo ninka inay faa'iido badan u leedahay oo ninkuna uu markaa dareemo pleasure aad u badan iyo raaxo aad u badan marka codka haweeneyda uu maqlo sidoo kale waxa isku dhacaan in markaas si fiican la iskula jaan qaado oo ninkiina uu raaxaysto haweeneydina ay raaxaysato oo balansiga ayuu ilaaliyaa codkaasi isku dheelitirnaanta gogosha ayuu ilaaliyaa ama lamaanu inay si fiican u kala bogtaan marka iyaduna hadday iscaburiso dhibaatooyinkaas ku dhaca isna haddii marka haweeneyda ay cabursanaato waxa uu waayaa macaansigii aadka u badnaa iyo raaxadii aadka u badnayd iyo markaas inuu si fiican ninkuna uga bogto gariirkii gogosha ama galmada markaas qaabka noocaas ayaa faa'iido ugu leeyahay codka haweeneydu ay sameynayso hadday iscaburiso dhakhaatiirta qaar waxay gaarsiiyaan xataa dhaguhu inay xanuunaan oo dhaguhu ay dilaacaan oo dhibaato caafimaad meeshii ay timaado intaas ayaan ku soo ururinayaa farxad iyo caafimaad taam ayaan idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.